السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. inagoo bisha Ramadaan isu diyaarina inaynu gudana tiirka afraad ee ka mid ah tiirarka Islaamka oo ah soonka bisha Ramadaan si aynu Ilaahay subxaanahu wa ta'aala ugu dhawaano dambi dhaafna uga helo. haddana dhinaca kale soonka bisha Ramadaan wuxuu jirkeena u leeyahay faa'iidooyin caafimaad oo tiro badan kuwaas oo aynu ka soo qaadan doono 6 ka mid ah oo kala ah 1 marka aad sooman tahay ee aanad wax cunto iyo cabitaan toona afka saarin wuxuu jirkaagu iska saarayaa oo iska nadiifinayaa sunta ka dhalata cuntooyinka iyo cabitaanada aynu isticmaalno qaarkood 2 muddada aad ku jirto soonka wuxuu dheefshiidkaagu helayaa waqti uu ku nasto dibna isugu habeeyo waxaanad afuraysaa marka la gaaro xilligii afurka isagoo dheefshiidkaagu ah mid si fiican u shaqaynaya 3 marka aad ku jirto soonka wuxuu jirkaagu iska saarayaa inflammationka iyo noocyo ka mid ah xasaasiyadda 4 waxa yaraanaysa hoosna u dhacaysa xaddiga sonkorta ee ku jirta dhiigaaga 5 xilliga aad ku jirto soonka wuxuu jirkaagu gubayaa oo iska saarayaa subagga xad dhaafka ee ku jira jirkaaga 6 muddada aad ku jirto soonka ee aad cuntada ka sooman tahay waxa xoogaysanaya difaaca jirkaaga ilaahayna waxaynu weydiisanaynaa inuu inaga aqbalo soonka salaada iyo dhammaan acmaasha wanaagsan ee aynu samaynayno inoona dambi dhaafo تؤمل أنك يوما تتوب وتشكو الذنوب وأنت الذنوب وفي كل يوم تبوء بذنب وعيب يضاف لباقي العيوب